Caasimada labaad ee wadanka Finland waxaa lagu soo bandhigay buugaag kala duwan oo qoray afhayeenkii hore wasaaradda amniga Soomaaliya Cabdicasiis Xildhibaan waxaana ka qayb galay aqoon-yahano, dhalinyaro, culimo, haween iyo xildhibaanada heer deegaan ee magaalada Turku ee dalka Finland. Kasoo qaybgalayaasha ayaa u mahadceliyay qoraa Cabdicasiis Xildhibaan iyagoo sheegay inay faa'iideen buugaagtiisa wax badan. Qoraa Cabdicasiis Xildhibaan horey u soo noqday afhayeenka wasaaradda amniga ayaa u mahadceliyay qurbo joogta ku nool caasimada labaad ee Finland sida wanaagsan ay u soo dhaweeyeen wuxuuna ka sheekeeyay maraaxiishii ay soo mareen buugaagtiisa. sida qalbigayga u qaadateen laba maalmood gudahood abaabul ka socday magaaladiina iyadoo aan ognahay waxa adduunku maanta uu la diriraayo oo ah waxaan loo jeedin ama aan la aqoon nooca ay yihiin galabta lafteeda inaan albaabka isaga baxoon idin laabo buugaagta iska qaata waxaan idinkugu keenay hadiyad baan idinkugu keenay Soomaaligu hiilo idinkaga baahan yahay 13 xorriyada waa laakiin nin ii sheegi kara ma jiro sawiradu sida ay u yaalaan iyo magacyadooda marka taariikhdoodii oo dhameystiran ayaa buugaan ku qoran oo ugu dambeeyay madaxweynaha hadda Soomaaliya Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya madaxweynaha ka Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ilaa bilowgii dowladnimadii Soomaaliya madaxdii Soomaaliya soo martay cabsida aan qabay isma lahayn dad intan la eg ayaa arki doontaa buug kasta waxaan ka soo qaaday 5 koob waxaan isiraadana culayskooda London ka keentay laba kaay soo xanuun aniga xataa waxaan isiri haddana waa jiidi doontaa berrito waxaad dana u celin doontaa wuxuu ahaa halkaas sida uu sheegay buugaagta ruuxa raba inuu af Soomaaliga wax ka barto waa inuu wax ka bartaa suugaanta Soomaalida. Qabanqaabiyaasha kulanka ayaa iyagana u mahadceliyay dhammaan dadkii ka soo ajeebiyay oo sheegay in qoraa Xildhibaan iyo qurbo joogta ku nool Turku ay kala faa'iideystaan aqoon iyo waayo aragnimo. midka luqadda yaqaana hooyadii iyo midkaan aqoonin isuba dhaw marka insha Allah waalidiintu waxaan u dardaarmayaa in maxay ilmaha lagula dadaalo luqadda hooyo in guriga lagu hadlo afar xabo finishka aan naqaano budka la dhacay inaan iska dayno oo aan raaho afka Soomaaliga Kenya aan kula hadalno Kenya markaan hormarino ayaa kan kala alla joognana oo wax ka keenaya mid maadiha ama mid diinaha inta cunuga uu keenaya hadii midkiisi oo asaga waalidkii uu ku hadlayay oo soo barbaaray in cunuga uu si fiican u barto marba waxaan jeclahay marka in aysan naga noqon Soomaalinimada history waxa arkaysaa dad halkan Albanians oo kale iyo Kosovan oo kale iyo ku dhahayo aniga aabahay Kosovan awowgay ahaa meena asaga wuxuu ku dhashay dibadda ilmihiisina wuxuu ku dhashay dibadda wuxuu ku leeyahay awowgay Muslim ahaa Kosovan ahaa ama Albanians ahaa meena waxay ka noqotay wixii history marka annagana waxaan ku dadaalaynaa inay history naga noqonin ka annaga aan dhalno uu ku dhalabo uu dhaho Soomaaliyan ahay wuxuu ku dhigi karaa Soomaaliya ahay waa inuu afka yaqaanaa waa inuu dhaqanka yaqaanaa waa inuu diinta yaqaanaa qofka horumarkiisa waxa lagu gartaa inta qoraalkiisa iyo aqoontiisa ay tahay marka bulshadeena waxna ma akhriso qoraalkeedana waa yahay qofka qoraagana waxa dhiirigelin kara bulsho wax akhrisan bulshadeena waxaan rabnaa haddaan wax akhrino wax la qoraayo badanaa qofka markuu wax qoro haddii la akhristo wuxuu helayaa dhiirigelin sababta wuxuu helayaa wixiisi waa la akhristay waxaa ka imaanaya feedback ama baahi badan ka imaanayso ama dhaliil kale ka imaanayso laakiin baahida yaa abuuri karo dadkeena bulshadeena dhulkana ku noolnahay caruuraan haysanaa luqadda ku dhibanahay ilmaheena waxaan rabnaa dhaxal inaan u reebno inaan wixii af Soomaaliga laga qoray aynu akhrino ubadkeenana aynu u gudbino marka buugaagtan laba siyood baan uga faa'iideyn karnaa mar inaga iibsan karna oo qofku markuu iibsado walaalkeen waxba soo gaaraya mar labaad si kale uga faa'iideyn karnaa waxa weeyaan librariyada marka la dhigo buugaag badan oo Soomaali ku qoran baa yaala haddii ay bataan oo mar walba la amaahdo oo aan qaadano taas waxay keenaysaa marka in buugaag aad u far badan laga dalbado inaan galo suugaanta Soomaalida akhriyo suugaanta Soomaalida gabayada iyo heesaha iyo in akhriyo heesaha waxaa dhageysan jiray laakiin inaan buuxo waxa ka hadlaysa iyo waxa ay tahay suugaanta waxa ay tahay markaasaan bilaabay alxamdulillah hadda waxaan aaminsanahay hadduusan dee lahjadoosa ahayn Soomaaliga guud la isku fahmo inaan wax badan ka aqaano waxay ii sahlashay si dadkuba ka dhawaajiyeen barashada finishka sababtoo erey finish ahaan u bari jiray aha shardi inuu cunuga finishka uu ku hadlay laakiin midda ay raadiyaan waxa weeye cunuga inuu maaragtay luqadda guriga amba luqadda afkiisa hooyo uu ku hadlay
marka ujeedada turjumaanka loogu yeero weeye meesha iyadoo loo marsiinayo bal inuu maaragtay uu fahmi karo marka waxba yaan luuqadda finishka xoogga la saarin ilmaha inta ay yar yihiin waxa waaye waa luuqadooda lagula hadlo si walbo asaga finish uu kugu jawaabo ay isku dayin inaad maaragtay ugu jawaab celiso luuqadda finishka isku day inaad af Soomaaliga aad kula hadashaan waan idin mahad celinaya dhamaantiin ka soo qaybgalka si kastaba dhalinyarada magaalada Turku ee caasimada labaad ee wadanka Finland ayaa muddooyinkii dambe waday in ay casuumaan dadka waxgalka ah ee Soomaaliyeed si loogu faa'iideysto aqoontooda iyo waayo aragnimadooda dawlad iska Soomaaliya iyo marxaladihii uu dalka soo maray Maria Harlin goobjoog